banaanka u soo bax si aynu cirka u wada aragno barnaamij la magac baxay bulshada Soomaali galbeed ee reejigjiga aan kula hadlay 2015 16 oo la yiraaho walaalayaal shanta aanudooda ee Soomaali oday dhaqameed sheekh siyaasi taajiriinta waa afarta iyo shacabkow banaanka u soo wada baxa kiini gaaban iyo kiini dheer si aad cirka iyo cadada iyo xidigaha aad u wada aragtaan nin gaaban iyo nin dheer iyo inta u dhaxaysa haday mugdi ka soo baxaan ama guri ka soo baxaan soo cirka ma wada arkaan waa fair waa xaq kii gaabnaa iyo kii dheeraa kulli way wada arkayaan xidigaha way wada tirinayaan cirka iyo bi'ada soo xaq ma aha haddaba midda aan xaq ahayn garashada okay qanaacada geesinimada dhabayaasha xalaasha afartanay shacabku ay noo dambeeyo oday dhaqameedow siyaasiyow culimo boqolkiiba 80 oo okay ganacsadow banaanka markaad u soo baxdo oo shacabku u soo baxo miyaad rabtaa inay xidigaha tiriyaan inay caadka arkaan maya inay mugdiga ku jiraan ayaa la rabaa ceelka jigjiga magaalada jigjiga waxaan jecelahay inay ahaato magaalo Soomaaliyeed in qabiil kasta oo Soomaali laga helo waliba qabiilada yaryar ee deganayn in ay la daneeyo la daryeelo haday tahay oo dhaqameed iyo siyaasi iyo ganacsade in la soo saaro shacabka qabiilka aan deganayn jigjiga si ay magaalo Soomaaliyeed u noqoto barnaamijkan waan difaaci ila abad jaamacadda cagaaran waxaan idin la wadaagi 2011 kii 15 kii xaqdarrada aan ku soo arkay deegaanka ee baawarka loo qaybin ee ilaha dhaqaale loo qaybin ee dukaanada loo qaybin ee suuqa loo qaybin dukaankan gubtay suuqan gubtay ma loo xaq sooray maya qurba joogtii timid ma loo xaq sooray boosaskii la bixinayay ma loo xaq sooray haddaba shacabkii aan ku yiri soo baxa si aad xidigaha u aragtaan ee ila yaabanaa maanta waxaan idin leeyahay horta marka horeysa waan ka xumahay dhibic dhaqaale oo khasaartay si guud Soomaali waan uga tacsiyay nimankan Minnesota shirka ku qabtay aad baan ugu farxay dhinacna waan ka naxay waxaan sharaxayaa insha Allah Sandero halqabsmaan yaan kugu qabsan waxaan kugu bixiyay waxa idin bixiyay groupkii qulumbayaasha raalika aada qisadii ku baxday waa qisa dheer qisadii qulumbayaashu inaad u gurmano shacabka Soomaaliyeed ee ku basbeelay ee ku hanti waayay jigjiga aad baan ugu farxay inaynu u qayla dhaamino aad baan ugu farxay laakiin walaal wixii adigu aadan oran karayn oo idinku aadan oran karayn bay jaamacadda cagaaran soo gudbin labadan madaxweyne Sandero okay labadan madaxweyne ayaynu soo qaadan madaxweynihii hore oo qaybiyay suuqa Soomaali u qaybiyay kurbi inuu si xaq ah u qaybiyay kurbi inaan si khaldan aaminsanahay waxaan soo arkay xaq darray ahayd ma indhahayga ma dhagahayga wax ii sheegayay mise waa run gabadhaha kamid oo aysan la ii soo diray inaabti dumaashi waan ka xumahay 12 dukaan may tiri mise 6 dukaan bay tiri isaha ayaa iga gubtay ilaahay baa ka hadliyay gabadhan walaal 6 dukaan eed kaliya yeelatay 35 qabiil oo Soomaali ah xaqoodii maadan qaadan hal xabay xaq ma yeesho haddaba hal gabar baan iminka ogaanay inay intaas oo dukaan lahayd gabadhan say ku heshay ma raganimo ay ku heshay iyo xiniyo mise garab bay ku heshay okay gabadhu waa ayo qabiilka waa markaan jeclahay
warbahasha waan deyn weynay qabiil iyo qurmoon reer absamow reer kuumadow mise waxa ka fiican reer ogaadeenow meeshan suuqan gubtay xoolaha khasaaray qoyskee u badnaa qoyska khasaaray ee si gaara ugu tacsiyeyn ila ii soo sheega ma reer kuumada mise waa dirta kale iyo hawiyaha kale iyo sheekhaashta kale waa midkee waxaan rabnaa inaan tacsiyeyno waxaan rabnaa inaan gurmadka badino oo qoladii u badnayd si gaara aan tacsiyada iyo magdhawa uga qaadno bahasha qaadaanka waan bixinaynaa sandheerow suldaan suga maxamed madow adeero raganimada ilaah baa qaybiya geesinimada ilaah baa qaybiya dhararka ilaah baa qaybiya saldanada ilaah baa qaybiya haddii reerka saldanadiisii ilaahay kuu dhiibay ummadda ma u xaqsoortaa ummadda ma ilaalisaa raganimada iyo raganimada ma ku raaxaysataa runta ma ku raaxaysataa mise show offka iyo beenta iyo khayaaliga ayaad ka mid tahay sultaan maxamed madow markii aan suuqa shacabka u dagaalamayay jijiyaa joogtay hotel baa deganayd malqacad dahaba ayaa afka kugu jiray kharashkaaga waa la bixinayay anigoo keligii ayaan shacabka u dagaalamayay oon xaqdarro soo arkay wixii aan soo arkay si aan u ogaano meeshan yaa u badnaa okay waxaan rabnaa inaan u badnaano taa waxaan ka iloobay dad baa ii soo dacwooday oo yidhi khaaduunka noolahow ummaddii soomaaliyeed oo ku khasaartay maxaad u aamusan tahay dowladdii iyo inaabtiga miyay idhaaheen qaar baa ii soo qoray iyo qolyihii huwantaa isku ahaydeen iyo mustafe dadkii masaakiinta ahaa meesha wuxuu dooni inuu ka saaro isagaa gubayo kan okay balaadin baa laygu akhriyey ma runbaa haynu baadhno okay mustafe marka wuxuu rabaa si xaqdarra ah inuu qaybiyo sawma ahaa anigu waxaan ogaa markii u horreysaba in si xaqdarra ah loo qaybiyey marka labada ma saxnaa mise mid keliya saxnaa labadan madaxweyne kii hore u qaybiyey iyo kan dambe oo laga cabsano already la sii baqayo oo dacwo badan la ii soo diray oo la isaga ka dambeeyey oo waxa ka dambeeyey jaahuuro oo kana ka dambeeyey oo muuse bixiba alla maxaa la isku dambaabi waxaan oo dhan waa inaan baadhnaa nin kasta oo meesha dukaanka ku lahaa cabdi maxamed cumar maxaa ka dhaxeeyey ma gabar buu ka qabay ma gabar buu ka shukaansanayey ma saraakiisha sirdoonku u ahaa ma ciidamadu u ahaa ma ilmaabtibay ahaayeen waa in siin jiin la sameeyaa waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed ee fundraisingka samayn doonow marka meel gubato ee abaar dhacdo tuweynta oo dhan baa soo orada oo tiraha meesha ha la caawiyo babababo magac baa la raadin jaamacadda cagaaran magac ma rabto okay lacag ma rabto ammaan ma rabto waxay rabtaa inay aragto xaq in loo xaq qaadayo ummadda in loo xaq soorayo ummadda waxaa kaloo rabaa jigjiga waan ku abtirsadaa waxaan jeclahay inay magaalo soomaaliyeed ahaato iyo inay jidwaaq yeeshaan wax ka dhexay ma jiro war jidwaaqo ama magaaladu ha noqoto magaalo soomaali ka dhaxaysa ama ha noqoto magaalo jidwaaq garowe waa la isku haystaa dhabayaco wataa gantaalla isla dhexaysa maxaa idinka leexiya soomaali godkaas qabyaaladee wada gashay haddii aad jidwaaqow tiraaheen waxaanu dooranaynaa gobonnimo oo haddana ilihii dhaqaalaha oo dhan hortiina lagu qaybin oo soomaali lagu dulmi ragga dulmaya waa absame waa kuumade waa ogaadeen ma mustafa keliya gaalgalaya kii ka horreeyey waa in la xisaabiyaa kulli waa in la xisaabiyaa labadaba waa in la xisaabiyaa magaaladu suuqaasi waa inuu noqdaa ama suuq soomaaliyeed ama suuq jidwaaq forgada bowd kuumade adeeda bahasha waa kaar la marsado okay xitaa ayaana ku xadgudbin ogaadeenkii waxaa laga yaabaa qoysas fara badan oo ogaadeena inaynan xal ku lahayn sida jidwaaq ugu dulmaya meeshan waxaan u baahannahay oo keliya inaan xaqa ogaano fundraisingka inaan ku badino qoladii meesha u badnayd waxaan doonaynaa barnaamij joogta ah lacagtaa la ururinayo rag baa already kiishada u tashay okay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay meesha siday ku gubatay waa inaan ogaanaa dadkii lahaa waa inaan ogaanaa waa in buuq iyo qalin dal qaato oo la yidhaaho okay kolka u horeysa absane okay baalcad meeqay ku leedahay soo qora
ويتين ميقو كليه أرياركي قلميس ميقو كليه أوكي أوغادين ميقو كليه جدواق ميقو كليه هاي وإن سين وجين وإن وليبا لصيفة السلاح جدواق دحديثة أوغادين دحديثة وإن سي دايدقا أوكي وإن ظلمي قدامادا أوكي انت أسواق ماذا أوكي در ماذا يقول هذا يدور ميقو كليه اوكي جري ادارك ما كليه اوكي دير ما سرع سو كل ربا شيخ خال ميقاي كلها وان جف لو سو قرا hadii markii hore la ogaado ka waran hal reer kaliya iska laha marka Soomaaliyeey donation ka bixinina idoro raasha qasaaqo deeqsiin baatiin abtiya ilmaada reer xaq ugu fiicantiin meesha idinka iska laha marra idinka meesha iska laha suuqan waqti hore say odayaashu ii sheegeen iminkana reer kumada meeshan iskale ayaan dareensanahay oo reer Cabdille la yiraaho yaanadoodi wa in aan soo saaraa banaanka yidoro lacagtiina haysta ma jeertano lacagtiina haysta hawiyo lacagtiina haysta absamo lacagtiina haysta cid kasta ay lacagtiina haysto shilin lama bixinayo ilaa ay runtu banaanka timaado ilaa aynu soo wada baxno aynu xidigaha tirino dayaxa tirino aadka tirino حقيقة هل كان مركان أوغانو مصطفى وحان لأنها هاي أقيبي كل كأوه الرئيسة سوق مني مربنو مدحويني ها هي عبد الله يا رئيس هل كان فريسة أوغانيت باتين كومالاتين وماذا كلا الصوماليات قويساس كأنجيجين تقرين هلا قبل لابو أوكي حمر وإن أي بقول كيف بقول كسر الرئيسة ويكسر الرئيسية مال صوماليات أو قبل ماذا الصوماليات koobka u haysa waa inay noqotaa marka Soomaalidii kale la siiyo boosaskii ku haboona ka bacdi absamo inta soo hadhay qaybsada oo hadii qolo ay u badato ma ku cadeeyo arabka reer Cabdille haday ku badato waa in la yiraahdo waad qaadateen waqtigiini saxda nasta adeer Soomaalidan ilaa maalintii la dhisay ilaa maanta rugmaysa qaseen waa hadii jidwaaq وبطان وين اللي يراه أديرو نستا مصطفى جامعة عقارن وحي كل هذا هاي قيس كماشا كوبتا تردو سعيد نقطة وين الحق أمضى وقعتا أو نكستو الصومالي أماشا لجهلا شن طلع الشيء إن شن تعين وين كمضوه غير هذا أنت عم كنت ينعاوة إن بدو أنت عم أوران كرتا بي سنديرو أنت عم أوران كرتا جامعة عقارن بقى هذا كولة إن عبتي كولة برنامج كهذا ودان وأنا قلت أجري لكن رجع already تيشيد طلعنا مجا رادين إن أمته وكل حقادين قال lost تبع كلها نايس نصو مجا بعد رادين لأن مجا رادينين كرسي رادينين أمان رادينين برشة وتاجن بحالكن تاجن لما نحوينا وكل حقادنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.